السلام الله عليكم saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo Kenya ka soo cusboonaaday. Dawladda Kenya ayaa markii saddexaad codsatay in dib loo dhigo dacwadda muranka badda ee kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya. Dawladda Kenya oo ku doodeysay in wakiiladii iyo sharciyaqaanadii u qaabilsan arrinta muranka badda inay ku kala xayirmeen wadamo kala duwan cudurka corona awgiis ayaa maxkamadda ICJ ka codsatay in dib loo dhigo dacwadda muranka badda. dawladda Soomaaliya oo arrintan aad uga hortimid ayaa iska diiday damaca dawladda Kenya iyadoo sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin in dib loo dhigo dacwadda muranka badda ee taala maxkamadda ICJ. dawladda Kenya ayaa doonaysa in dacwaddan lala sugo doorashada soo socota ee 2021 ka dhici doonta Soomaaliya maadaama laga yaabo inay soo baxaan madax ka duwan kuwa hadda talada haya oo iyagu laaluush iyo wada hadal iska diiday. dawladda Kenya ayaa rajo fiican ka leh haddii dib loo dhigo muranka badda inay la macaamili doonto madaxda soo socota ee Soomaaliya haddii isbedel yimaado. dhanka kale diyaarada dagaal ay leedahay dawladda Kenya ayaa dad shacab ku laayay deegaano ka tirsan gobolka Gedo. deegaan lagu magacaabo Cows Qurun oo qiyaastii 70 kiiloomitir u jira degmada Ceelwaaq ayay xalay diyaaradaha Kenya duqeyn ku dileen hooyo iyo laba carruur oo ay dhashay. ilaa iyo hadda ma jirto cid ka hadashay dhacdadan wala weysanayn markii ugu horeysay oo ay diyaaradaha Kenya dad shacab ku laayaan gudaha Soomaaliya. fadlan subscribe sar YouTube channel kayga mahadsanid.